labaatanka bisha sagaalaad sanadka 2024 aniga iyo walaalkayga qaaliga ah al-ustaad Cabdullaahi Cusmaan Dhicisow ayaa booqashada igu waliyo ujeedka aan u nimidna wuxuu yahay inaan dhiirigelino ardada ku xiraysan xarunta Maam Ugaaso Rehabilitation Center oo galabnimo khamiis aan soo booqanay waa ilaahay mahadiisa halkaan waxaan u nimid inaan ardada dhiirigelino aan ka farxino sida ay u nool yihiin iyo sida ay wax u bartaan aan wax ka aragno halkaan waxaa ugu nimid dad diyaarsan faraxsan qalbiyo wanaagsan leh oo la diyaariyay wax la baray la tarbiyeyay aad u qurux badan jismi ahaan qalbi ahaan muuqaal ahaan u diyaarsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo Maam Ugaaso iyo tiimkeeda iyo macallimiinteeda iyo dhammaan iyo howlwadeennada xarunta Maam Ugaaso Rehabilitation Center marka hordhac ayay ahayd intaas microphone-ka iyo meega waxaan ku soo dhaweyn doonaa insha allahu tacaala المعلم المربي الأستاذ عبد الله عثمان دعيسو oo ah dhiirigeliye iyo bare iyo barbaariye Soomaaliyeed isla markaasna aad u jecel ubadka noocan oo kala ah in dhiirigeliyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha xifdiyo ha barakeeyo ha wanaajiyo ilaahay masalkiisa oo kale umada ha ku badiyo ustaadii ku soo dhawow microphone-ka insha Allah ta'ala kelimadaada ku aadan wujuudan aadka u quruxda badan sidii markaasi aad ugu soo jeedin lahayd aqoontaada iyo cilmigaaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala kugu manadaystay iyo wixii aad ugu soo tala gashay ardadan inaad la wadaagto aad ku dhiirigeliso insha Allah ta'ala kelimadaada iyo microphone-kaba ku soo dhawow insha Allah ما شاء الله ومعزتي